maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo sidoo kale barsaabka gobolka Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye ayaa maanta booqasho ku tagay garoonka Mo Farax ee magaalada Gabiley oo tababar adag uga socdo xulka kubadda cagta ee gobolka Gabiley ee xilligan u diyaar garoobaya ka qaybgalka tartanka gobolada Soomaaliland waxana xidigahani loo xulay hanashada koobka horyaalka ee gobolada Soomaaliland waa xul si adag loo dhisay waa xulka kaliya ee xulalka Soomaaliland la xereeyay 13 bishan ay ku guda jirno waxa loo diyaariyay hoy u khaas xulka iyo sidoo kale gaadiid u khaas oo qaabilsan geynta tababarka iyo ka soo celinta tababarka sidoo kale waxa loo diyaariyay hotel oo gaar ah xulka gobolka Gabiley sidoo kale barsaabka gobolka iyo maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa booqday garoonka uu tababarku uga socdo xulka orodka ee xilligan iyaguna u diyaar garoobaya ka qaybgalka tartanka orodada ee Soomaaliland gabagabadina barsaabka maayarka magaalada Gabiley ayaa kormeerkoogani booqashada ku tagay garoonka kubadda kolayga ee gobolka Gabiley oo xilligan uu tababar iyagana uga socdo xulka kubadda kolayga ee gobolka Gabiley oo xilligan iyaguna u diyaar garoobaya ka qaybgalka tartanka kubadda kolayga ee gobolada Soomaaliland wana xul u diyaar garoobay soo celinta koobkii 2016 ku guuleystay kubadda kolayga ee gobolka Gabiley waa dhalinyaro xirfadoodu sareyso kalsooni badanna lagu qabo maayarka iyo barsaabka ayaa kormeerkoogani booqashada u yahay mid dhiirigelin ah oo ay xulalka kala duwan ee gobolka Gabiley ugu muujinayaan sida ay u garab taagan yihiin iyo kalsoonida ay ku qabaan inay koobabka kala duwan ee orodada basketka iyo cagta ay keeni doonaan gobolka Gabiley ugu halkaasi ka hadlay Axmed Cumar Awga tababaraha xulka kubadda cagta iyo sidoo kale tababar xogeenka xulka kubadda basketballka ee gobolka Gabiley Awdarus Aadan waxaana ay maamulka gobolka Gabiley uga mahad celiyeen kormeer kale booqashada ay ugu yimaadeen maanta waxaan nagu soo booqday barsaabkii gobolka iyo maayarkii oo socda wadnay tababarkii kubadda cagta oo noo socotay muddadan inta ka bishu tahay 12ka markaa waxaan ku jirnay tababar adag baan ku jirnay maanta waxaan soo galay labadii soo galay aad baan ugu soo dhaweynayaa barsaabka iyo gobolku maadaama ay mar walba garab taagan yihiin maanta ma naaxaleen agabka iyo garoonka sida quruxda badan leh iyo dhalinta sida quruxda badan leh waxa lagu garab taagan maamulka gobolka oo mar walba hiliyo hoobana garab taagan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa garoonkii kubadda kolayga ee gobolka Gabiley waxa si toos ah noogu socda trainingkii aanu kaga qayb galinay xulka gobolada si fiican buu runtii trainingku noogu socdaa macallimiintii iyo ciyaartooyinta oo dhameystirayeen insha Allah sanadka waxaan doonaynaa koobkii aanu ku guuleysay 2013 inaan maantana sumcadiisii iyo karaamadiisii aan soo ceshano oo aan ku guuleysano koobkaygii labaad fiican bay maamulku nooga warhayaan oo waxaan u baahano hiil iyo hoob in la garab taagan yihiin markastana saasaynu garab joogan oo kuwa maanta garoonkii jooga markasta wayna babar yaacayaan maxaad u baahan tihiin maxaad doonaysaan in la idin qabto aad bay ugu ammaanayeen maamulkayguna sida fiican ee ay noogala qayb qaateen mar walba ay noo garab taagan yihiin xulkiina waa diyaar waan soo soconaa waxaanu doonayaa inaan difaacno koobkayga insha Allah guul baan naga go'an gabadhna halkaasi ka hadlay maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo barsaabka gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye farxad bay noo tahay inaan ku soo booqano idinkoo ku guda jira tababarkii ay ku diyaar garoobeen ka qaybgalka wareegga gobolada Soomaaliland ee 28 bisha ka furmi doona caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inagoo ka mid ah 14 gobol ee ku tartami doona wareeggaasi gobolkani wuxuu daarnaa inaan runtii hawsha iyo sida idinku socotaan u soo koorgalno annagoo muddadii soo bilaabnay si dhow aanu uga warhayno xiriir joogto aanu leenahay macallimiinta waxaa halkan si wada jira ku tababaranayay kubadda cagta iyo orodadii shaqo adag baad runtii ku jirtaan aad iyo aad baan macallinka iyo macallin ku-xigeenkaba uga mahad celinaynaa sida waqtigooda iyo aqoontooda iyo dadaalkoodaba ay idinla garab taagan yihiin idinkana diyaargarowga fiican ee idinka muuqda ee nafurnimada leh aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa muddo waxaan filayaa 3 bisha ayuu idin soo bilaabay tababarkan habeen gelin hore iyo gelin dambaba samaysaan qorshaheena iyo taargeteena waxa weeye inay koobka kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku tartamaso aynu markii ugu horeysay Gabiley keeno waxaan aad iyo aad ugu rajaynaynaa insha Allah taala sanadadii hore nasiibku bay naga heliyeen
laakiin sanadkan nasiibkuna inaga jiro idinka iyo dadaalkiina iyo cagtiina insha allahu tacaala kalsooni weyn baan ku qabnaa waxaan idinkula dardaarmaynaa in bixin aynu siiman doona insha allah waa la dardaarmi doonaa dardaarano badanna way noo hadheen inaad waxa weeye waqtigaa kooban ka faa'iidaysaan mid walba dadaalkiisa ugu sarreeya uu sameeyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa guul wanaagsan inaynu gaari doono dhinaca ay tahay hadday tahay orodada iyo hadday tahay kubadda cagta iyo hadday tahay kolayada annaguna waynu barbar taagannahay dadweynaha reer Gabiley gudaha iyo dibadda meelay joogaanba inay barbar taagnaan siday u barbar taagan yihiin iminkaba ayaan rajaynaynaa insha allah dee horta waa nasiib laakiin karti baa loo baahan yahay iyo dadaal midda ugu muhiimsan ee koobka lagu qaadaa waxa weeyaan akhlaaqda inaynu ilaashano oo ilaalino akhlaaqda maadaama aynu doonayno inaynu guul ku soo hoyno gobolka Gabiley gobolka waxaan malaynayaa sida loo garab taagay dhalinyaradu inkastoo gobolada dhan la garab taagay haddana ma filayo sida ilaa maalintii ilaa maanta markaan dee yara xogeystay ilaa intaa waa la istaba socdaa ee gobolada kale 23 ilaa maanta waxa ku xareysnaydeen meel gaara iyada oo halka aad ka helayseen wax kasta u baahantiin garoonkii leedikeenayay celinayay hurdadii iyo cuntadii iyo wax kasta bay isugu dul yaaleen waxaan u malaynayaa may jirin inta in leeg Soomaaliland goboladeeda kale sida warka ku hayo waxa la idinka baahayay dadaalka la idin galay inay idinkuna ka soo baxdaan oo aydan dayicin nasiibku waa meeshiisa oo dee calaf baa haddaynu weyno dee dhib ma laha laakiin haddaynu double koobka weyno dee yaynaan ka hadhin ka labaad waxaan filayaa inaynu finalku iman doono laakiin anigu waxaan ku qanacsanahay oo aan niyadda ku hayaa oo aan aad iyo aad ugu rajo weynahay inaynu koobka soo qaadayno intaa koobku socdo aniga iyo maayarku midna idinka maqnaan maayo waa idin dul taagnaanaynaa annagaa idin guddiya annagaa idin odayaala annagaa idin maamula wax kastoo aad tabataan iyo wax kasta aad tabanaysaan dee macallimiintiinni baa idinla jooga oo lagu kalsoon yahay idinkuna ku kalsoon tihiin taa iyagaanu kala qaadanaynaa iyo isduwaha laakiin waxa weeyaan muhiimaddu uun inaydaan wax allaala wax ka warwarin in aad waxaad ka tabaysaan aanay jirin waayaan la xaaji telefishinka qaranka Gabiley.